bashir kusoo dhawow VOA waad ku mahadsantahay inaad naga aqbashay waraysigan dabcan in badan ayaad waxaad ku xirnayd dalka Ethiopia bal marka hore waxaad iiga warantaa qaabkii lagu xiray bismillaahir rahmaanir rahiim waad ku mahadsantahay sallallahu socotaan ba 1906 dowladda Ethiopia waxay qorshaysatay iyadoo kaashaysana dowladda dariska ah inay weerarto Soomaaliya oo marka ay ka taliyeen maxkamadda Islaamiga ah aniguna waxaan ku sugnaa xilliga iyada Muqdisho ana u jooga ganacsi xilligii weerarku bilaaban lahaa muddo ka horeysa ayaa waxaa la gooyay waxa la wixii gaadiid ahaa cirka iyo badda ahaa ee Soomaaliya waxay qasabtay marka maadaama dagaal ka dhacay meesha inaan sii joogi karin waxaan go'aansaday marka inaan Nairobi oo xaaskayga joogo horena u tagi jiray inaan tago oo halka diyaarad ka raaco Muqdisho ka soo baxay 27 December 2006 Doble waxaan imid 31 isla bishaas maalintii Carafa ahayd waxaan ogaanay marka halkaan imid inuu xadku xidhan yahay sababta loo xidhay ma aanan ogeyn meediyahan laga macdaynin laakiin degaankii baabuurtii la soo celinayaan ogaanay waxaan xogtii ku helay marka dadkii loo soo celinayo inay document haysanin maadaama baasaboor ajnabi ah wato sharcina yahay validna yahay baasaboorku waxaan damcay inaan marka tago immigrationka waxaan imid Kenya saan weydiiso fiisa xilligan fiisada weydiistay meeshii laga siin lahaa fiisada ama la ii diidi lahaa dowladda Kenya waxay go'aansatay inay xilliga iyada ah sabab ay xidhan la ma sheegin waxa la keenay Gaarisa 6 cisho ayaan ku xidhnaa Gaarisa guddi loo diyaariyay oo aan markii hore anagu ogeyn oo dadkan screen ku sameeyay loogu talagalo ilaa iyo 6 committee ka kooban anti terrorist group iyo anti corruption group iyo CID ay isugu jiraan la cishay baareen maalintii lixaad waxay conclusion ku soo gaareen inaan wax dambi ah lahayn fariina aan ahay xor aan ahay markii ay madaxdooda sare ee Nairobi ogeysiiyeen waxa loo sheegay inay na soo gudbiyaan si aan halkaan iga sii daayo dib uma arkin xilliga iyada maxay yahay xaaskayga halkaa joogay socodkayguna halkaa u buuhaa markii aan imid station police baa la igeeyay oo hal balo ku jira safaaradda Canada maalintii koobaad jamcaan nimid bisha 7deedii bisha 8deedii waxa igu yimid niman security Kenyaati oo ila socdaan laba nin oo Ethiopiana xilliga iyada waxaan ii muuqatay marka inay tahay arrin cusub oo runtii shaki badan leh safaaradda Canada ogeysiiyay dhinaca kale waxaan dalbaday lawyer in la isoo qabto saan u file galay dacwadeyda waan sameynay falkii baa la geeyay dowladda Canada runtii wixii aan rabay mayna sameynin oo hawshii iyada ahayd in dowladda Kenya la xiriidho ama maxkamad la keenay hadii dambi la ii haysto ama wadankayga la ii soo dhoofiyo ma ayna sameynin runtii arrintaa way ka gaabiyeen faylkii maxkamadda la file gareeyay attorney generalku wuxuu yiri dacwadantada ma ogi muddaha la isiiyo 22 ka soo jawaabi doonaa ka hor baana la qorshaysan in la dhiibo 22kii intaan aan gaarin 20kii January goor subax ayaa waxa yimid security baa yimid garoonka xabsi ay yimaadeen alaabta soo qaaday yiraahdeen haddii aan eegay liiskii uu gacanta ku hayay ninkii security ah liis dheer oo magaca Soomaaliya u badan ayay ahaayeen haddaan eegay waraaqda magacyada ku qoran yihiin waraaq ka dambaysa amarkiina lagu qaadi lahaa weeye letter headkii waraaqdana lagu qaadi lahaa baa ku qoran the office of the president markaan arkay waxaan garwaaqsaday in la dhiibayo waxa ii suuroobay marka inaan booliiska halkaa joogo la heshiyo inaan mobile ka qaato mobilekii aan qarsado baabuur baana lagu qaaday baabuurka security wayna raaceen garoonkii baa toosna loo geeyay intaan garoonka gaarin waxa ii saamaxday inaan la hadlo ehelkaygii una sheegay in la qaaday meel noo wadana aan garanaynin laakiin ay u badan tahay halka in loo qaadayo garoonkii markaan nimid waxaan laga soo galay dhinaca kaargooga sanad cid ula kulmin haddaan soo galay waxaan ugu nimid meesha madaxdii Kenya oo fara badan state media oo isagana taagan security fara badan gaariga horeeyay meesha galan ahaa ruuxii u dambeeyay diyaaradda la soo saarana waan ahaa gaarigii markii meesha la joojiyay waxaa soo bilaabatay baabuur yar oo kale oo iyaguna booliiska laga soo qaaday stationadooda dad fara badan oo Soomaali u badan ayaa la soo qaaday diyaaradii baa la saaray group wadamaynta markii aniga la soo gaaray ninkii meesha madaxa ka baan la hadlay waxaan ku yiri anigu Ethiopia ma ihi Soomaaliya ma ihi haddii Ethiopia dowladda Canada Kenya waxay haysato maxkamadda la soo saaray hadii kale wadankayga hal ii dhoofiyo si qosolay ugu jawaabay wadankayga waan ku dhoofinayna wax dhiba male waan diiday inaan diyaaradii fuulo garoonkii baan iska dhex seexday
isla mar ahaanta diyaarad baa meesha taagan African Express la yidhaahdo muddo badan ku safri jiray ruudkeedana aan aqaano xilliga iyada marka waxaa ii saamaxday inaan gudbiyo diyaaradda magaceeda iyo nambarkeeda isla mar ahaanta aan gudbiyo dadka tirada la saaray diyaaradda xogtaa markaan bixiyo kadib ana diida inaan diyaaradda raaco Kenyaatii aad bay iga raaceen diyaaraddii baa gacmaha iyo lugaha laga xidhay way jajabiyeen garabka iyo gacmaha iyo lugahaba muddo badan baa dhaawac ka ah 2 sano ah diyaaraddii baa xoog lagu saaray Muqdishoana la keenay Muqdisho Ethiopiaanka haysto Ethiopian baa lagu wareejiyey 2 cisho ayaan garoonkii Muqdisho ayaan joogay 22 iyo 22 Monday 22 baa layga soo qaaday diyaarad military ayaa layga qaaday halkaas anoo indhaha ka xidhan Ethiopia la geeyey muddo waxaa lagu hayay ciidamada cirka oo meel Dabrazeyd la yiraahdo 40 kilomitir u jirta ka bacdi waxaa la ii soo wareejiyey meesha dami baarista guud ee federaalka oo loo yaqaano Makalaawi oo meesha dadka lagu xasuuqo muddo fara badanna xukuumadii horena soo isticmaaleen halka ayaa waxaan ku jiray muddo 2 sano oo aanan wax bini'aadmi arag cid ay baadhaysa mooye oo maxkamadna aan arag ayaan ku jiray gaar ahaan sanadkii koowaad aan maxkamad lahayn sanadkii dambena maxkamad military baa la saari doonaa marka saasaan lagu qabtay kadib dabcan halkaa lagugu xiray maxkamad ayaa lagu gudbiyey maxaa lagugu eedeeyey markaas halkeese lagu bedelay markaa run ahaantii sanadkii koowaad dambi baadhisteeda ku jiray wax dambi oon Ethiopia ka galay ma weydiinaynin waxaa la i weydiinayey inaan la shaqeeyo dowladda Ethiopia gaar ahaan inaan la shaqeeyo maamulka Soomaalida ee ka dhisan deegaankaas inaan la shaqeeyo iyaga oo ujeedadoodu markaa ay tahay haddii aan la shaqeeyo maamulka maadaama aan ka soo jeedo qoys ay ku tuhunsan yihiin in shacabka deegaankaasi uu tixgelin u hayo waxay aaminsanaayeen in isbedelka ama kacdoonka ka socdaay inuu isbedel ku dhacayo ayay aaminsanaayeen hal sano ka bacdi kolkay ogaadeen inaan arrintaa fulinaynin waxay saareen maxkamad military oo qasoodi ah maxkamadda militariga waxaan saaraa 10 bilood ka bacdi dowladda Canada ayaa faragelin soo samaysay oo muddo badan ka daba dhawaaqaysay waxaa loo go'aansaday in la ii soo gudbiyo maxkamadda criminalka caadiga ama maxkamadda caadiga ah sibilka ah taas oo la igu soo eedeeyay dambiye fara badan oo ay ka mid yihiin inaan ka mid ahay ururka ONLF inaan Ethiopia burburinteeda anigu aan xubinka ugu muhiimsanahay ciidamo u tababaro wadamo kale ka keeno geeska Afrika oo dhan aan u ahay diblomaasiga u jooga halkaas dhaqaalaha ugu ururiya maxkamadda islaamiga inaan anigu lug ku leedahay hubeyntoodii kiiska lagu eedeeyay oo aan ahayn wax muhmal uun iska ah detailna aan lahayn oo macnaha tafaasiil jirin 3 sano taariikhdooda marka laga bilaabo 90 iyo 3 ilaa 96 ilaa 99 oo inaga inoo 2003 ilaa 2006 inaan dambiga faldambiyeedka ku jiray kiiskaas lagu soo eedeeyay kadib Bashir waa lagu xiray oo in muddo ah ayaad xabsiga iminka aad ka soo baxdaad ku jirtay dad badan waxay rumaysan yihiin xabsiyada Ethiopia inay yihiin kuwa ugu dhibka badan marka maxaabiistu ay ku jiraan inta aad xabsiga ku jirtay maxaad la kulantay run ahaantii waxa lagu soo koobi karo dhibka meesha yaala ama aan anigu shakhsi ahaan la kulmay ama nafsadeeda ay soo gaaray ama indhahaygu arkayaan wax halka lagu soo koobi kara ma aha oo program yar oo wareysi lagu soo koobi kara ma aha laakiin dhibka ugu badan waxa weeye marka koowaad waxaan ku jiray meel mugdi ah dhulka hoostiisa ah aan lahayn gogol lahayn aan lahayn muxuu ahaa barbar ventilation aan lahayn oo neef meelkaasoo hawe aan lahayn nal aan lahayn ayaan ku jiray 2 sano wax bini'aadmina lama ogolaanin oon ka ahayn dadka baaraya ujeedada loogu talagalana ay tahay qofka in ujeedada laga gaaro oo ah wax lagu weydiinayo inaad ogolaato haddaad ogolaan weydinna in halka ay kugu dhamaato oo markay ugu yar tahay haddii ama physical adduun ku soo gaarin wax maaragtay curyaannimo ah in ugu yaraan mentally aad maan qof baal noqoto marka xaaladda halka lagu jiro waxaa intaa dheer inaad mar walba arkayso dadka la soo garaacay mararka qaarkood dad meyd inaad aragto ay u badan tahay dad curyaame inaad aragto kuwa 16 sano 20 sano ku xidhan inaad aragto oo korkoodu dhawr ka soo baxday oo meelaha qaarkood si lagu cabsi geliyo mararka qaarkood dadka la kulantana waa laga yaabaa marka runtii wax laga sheekeyn karo ma aynan ahayn dadka meesha ku xidhan dee wax maaragtay cadad lama aha mar walba anigu inkastoo muddo badan joogay dadku way yimaadaan way baxaan runtii dhibaato aad fara badan baa taala halkan lagama sheekeyn karo waa tahay dabcan sida adiguba hadda ka dhawaajisay waxa lagu eedeeyey dabcan inaad ka tirsan tahay ONLF maxaa ka jira arrinkaas runtii arrintaasi Ethiopia kolkii hore waxay qabatay ma inaan ahayn inaan ONLF ahay
soomaaliya markay weeraraysay waxay sheegtay etoobiya say u justify garayso in dad badan oo ajnabi ihi uu ka dagaalamayo ururka onlf ka mid yahay oo lf urur la yidhaahdo oo etoobiya ka dagaalamo ka mid yahay dad badan oo muslimiin ah oo wadamo kale ka yimid inay jiraan. kolka etoobiya gashayna way weyda warkii nooca ahaa ee wadanka ku weerartay. qofkii koowaad ee waxaa noqday baasaboor ajnabi ah wata. marka koowaad qabashada la qabtay waxaa la qabanaya baasaboor ajnabi inaan wato si looga dhigo inaan maaragtay ahay qof mujaahido ka dagaalamay meeshaas. etoobiya markay qaaday ee ogaatay inaan arrintaasi waxba ka jirin waxay ga codsatay inaan la shaqeeyo. muddo hal sana ay maaragtay arrintaa igu waday dhib badan igu soo gaaray. markay ogaatay taa inaana yeelaynina waxay abuurtay case la been abuur ah oo ah inaan ONLF ahay geeska Afrika inaan nabadgelyo darro ka wado. tiina maxkamaddii wax caddaynayna mayna keenin. haba yaraatee wax ama magacayga ah ama sawirkayga ah ama dukumenti ah noocnaba wax evidence ah mayna keenin. isla mar ahaanta markhaatiyada ay keenteen markhaatiya dowladda ka socday ahaayeen oo maleeshiyooyin ah. iyaguna aniga bay markii dambe ii markhaati furi doonaan. kayskii waan difaacay caddayna waan caddeeyey. laakiin marka laga soo gudbo eedooda iyaga oo ah inaad ONLF ka tirsantahay adigu Bashiir ahaan ONLF ma ka tirsantahay? maxkamaddan ka buruuf garay inaan ONLF ka tirsanayn caddayntiina way hayaan maxkamaddana way ku wada qanacday xilliga iyada ah. waa tahay dabcan waxaa jirtay in cabdikariim qalbi dhagax laga soo qabtay Soomaaliya oo isagana la sheegay inuu ONLF ka tirsan yahay weliba madaxdooda uu ka mid yahay. maxaad kala socotay xarigiisa xabsigiisa ma ku kulantay? run ahaantii cabdikariim maanan arag. waan maqlay cabdikariim la qabtay Soomaaliya laga soo dhiibay. meesha anigu jooga lama keenin. wax suganna kama aanan haynin. haddii laga tegi waayo inuu ku xiran yahay saba dhexdeeda war ah buu isoo gaadhay. cabdikariim keliya ma aha laakiin dadka Soomaaliya laga soo dhiibay cabdikariim keliya ma aha. dad fara badan oo Soomaaliya laga soo dhiibay oo u dhashay jamhuuriyadda Soomaaliyeed doolow laga soo dhiibay baa jira. kuwa arsaba laga qabtay baa jira oo Soomaali ah oo fara badan. 5 sano u dambeysay 8 group oo Soomaali ah oo laga qabtay baa jira Addis Ababa iyo doolow laga keenay baa jira. dadkaas lagu jirdilay qaarkoodna ku dhinteen maxamed ibraahim la yiraahdo 2013 dhamaadkiisii. dadkii laga qabtay oo caan ka ah wadankaas dukaamo ku lahaa ganacsi ku lahaa si loo jirdilay inuu cid ku markhaati furo uu dhintay ninkaas dilkii uu dhintay. dhib badan baan ka soo gaaray. keliyihii baa lagala baxay. ehelkiisiina waxaa loo sheegay in 2500 oo bir la yimaadaan oo meydkiisa qaataan. marka cabdikariim dadkaasuu ka mid yahay runtii inkastoo nin maaragtay cadowgii dee uu la dagaalamay loo keenay. kuwa kale ee Soomaalida laftooda ee shacabka ahayn waxay galabsadeen jirin. sabab kastaba ha ahaatee laga soo dhiibayo ama Soomaaliya xadadkeeda oo maamulada ka soo dhiibayaan ama laga qabanayo Addis Ababa dhexdeeda. runtii waa arrin u baahan shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan in dhibaatada ka taagan muxuu ahay Ethiopia dhexdeeda inaan ahayn oo shacabka Soomaaliyeed oo Ethiopia ku hoos nool ay ogaadeen ku hoos nool uusan kaliya ahayn shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaaso ku nool inay muwaadiniintooda halka ku wada xiran yihiin oo godadka ka buuxaan in la ogaado. runtii aad bay muhiim u tahay. markii aan fursad helana waxaan jecelahay inaan maaragtay faasiil ka badan bixiyo intaas. waa tahay Bashiir in muddo aad xirnayd 12 sano ku dhawaad waa muddo aad u badan. waxay su'aashu tahay dad badan dabcan isweydiinayaan dawladda Canada inagoo inay dadaalo waday qoyskaaga laftiisu dadaalo badan ay wadeen haddana yaa gacan ka geystay soo deyntaada? runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo maan ugu mahadinayaa soo deyntayda. cid kale oo mahadda aan siinaya ma jirto. inta haddii laga tago shacabka Ethiopia ka kacdoomay gumaysiga meesha ka jiraya ama maamulka meesha ka jira cadaadiska uu ku hayo shacabka reer Ethiopia. gumaysiga ka gilgishay ee kacdoonka sameeyey ee haddaba kacdoonkii ka socdo. taas sababteeda ayuu ilaahay sabab uga dhigay. dowladda Canada dadaal way samaysay laakiin dadaal runtii aan ku qanacsanayn bay ahayd. iyada laftooda laba dowlad kala ahaayeen haddana dadaal aan ku qanacsanahay muunan ahayn. laakiin sababta ugu muhiimsan ilaahay wuxuu uga dhigay kacdoonka halka ka jira. waa tahay dabcan magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan Canada ayaa tagtay dhawaan xubno dowladda ka tirsan ayaad la kulantay. xubnahaasi maxaad kala hadashay? muhiimka koowaad wuxuu ahaa dhibaatadii soo gaadhay iyo cabashadeeda inaan shacabka Canada ogeysiiyo. isla mar ahaanta dowladda Canada ay ogaato muxuu ahaa waxa aan tabanayo isla mar ahaanta aan ka codsaday dowladda Canada inay dib u baaris ku samayso guddi loo sameeyo arrinta baadha sababihii dowladda Canada dadaalkeedu u madhadhali waayey gaar ahaan xilligii 3 asbuuc ee joogay Kenya Nairobi sababta ay dowladda Canada u soo faragelin weyday in baaris lagu sameeyo.
ahamiyadda guud marka press conference buu ahaa marka koowaad howlka weyn ee baarlamaanka ayaan ku samaynay conferencekaas idaacadaha waddanka o dhan way yimaadeen telefishinada way yimaadeen waxa weeyaan cabashadii dhibkii soo gaadhay ee burburkii aniga ehelkayga soo gaadhay oo ah maaragtay burbur aad fara badan oo ehelkayga oo sababteeda loo xilxilay qaar badan ku dhinteen qaarna weli xabsiga ku jiraan qaarna qaxooti noqdeen iyo dhibaatadii soo gaadhay ee dowladda Canada runtii hadday tallaabo ka qaadi lahayd aan aaminsan inaan ka badbaadi lahaa inaan shacabka Canada ogaado isla mar ahaantaa inaanan waxba ku lug lahayn oo wax dambi aan lahayn inaan meesha ka cadeeyo ayay ahmiyadda koowaad ahayd press release-ka iyo interviewada markaan dhamaynayna waxaan isku daynay dowladda inaan la kulano parliament secretary baan la kulmay ninkaas oo aan dowlad ahaan markaa ujeedadu ahayn laakiin ahmiyaddu ahayd nin markii uu mucaaradka ahaana runtii kayskayga aad ugu halgamay markii uu dowladda noqdayna u halgamay oo igu yimid xabsigii xaggaa igu yimid iminkana ah parliamentary secretary ah ninkaas ayaan la kulanay iyo qayb ka mid a dowladda waxay ahayd ahmiyaddu inaan uga mahadceliyo maaragtay dadaalkii shakhsi ahaan isagii dowladdiisa ciddii ku baakagaraysay maaragtay ama ku taageeraysay inaan uga mahadceliyo laakiin cabashadaydu waxa weeye dowladda sideedan ugu gudbiyey iyadoo qoraalaan gudbiyey marka dadkaasaan la kulmay dad fara badan oo la kulmay oo kalena way jireen oo dowladda Canada oo dadkii baarlamaanka hore u ahaan jiray dowladda ka tirsanaan jiray wariyaal ah dad fara badan oo activistayaal oo kayskayga runtii gacan badan ka geystay Amnesty International ku jirto dadkaana inaan ugu mahadceliyo ayay ahayd ujeedadatiin aan kusoo sameynay waan kusoo guulaystay waa tahay dabcan isbedel ayaa ka dhacay Ethiopia laftaada iminka aad xustay dowladda Ethiopia iyo ONLF-na waxaa jira dabcan la leeyahay wadahadal ayaa u socda wadahadaladaasi maxaad kala socotaa mustaqbalkase xagee bay ku dambeyn doontaa wadahadaladaas anigu sidaan u maqla umaan maqlaa maadaama urka ka tirsanayn maqal bay ugu tahay laakiin arrinta isbedelka Ethiopia isbedelka ma dhicin dadku waxaa laga yaabaa inay khalad fahansan yihiin baa laga yaabaa isbedel waxaa la yidhahdaa xisbiga talada haya markuu ka tagay xisbi kale talada qabto ama midiisu la nooc ahaada ama ka duwanaada ayaa la yidhahdaa isbedel dad fara badan baa ku khaldan arrintaa iyada isbedel waxa la yidhahda kama dhicin ururkii talada haya EPRDF unbaa isbedelay hogaamintiisii gaar ahaan ra-iisul wasaarihii unbaa isbedelay markii koowaad isbedelana maaha waa markii afraad ra-iisul wasaare soo mara waddankaas saddex xukuumaddaasi jirtay tabraad leyli baa ra-iisul wasaarihii koowaad ahaa meles baa ahaa kii labaad xaymarin rasaali baa kii saddexaad ahaa abiy axmedna waa kii afraad weeye marka wax isbedelaho meesha ka dhacay ma jiro haddii uu isbedel dhici doono kacdoonka socda wuxuu keeni doono weeye welina Ethiopia gacan uur ku jirta weeye weli isbedel kama dhicin laakiin waa la sugayaa isbedel inuu ka dhaco shacabka Ethiopia waxay doonayaan nidaamkii ka jiray ee talada hayay 27 sano lasoo dhaafay nidaamkaas oo waddanka dhib badan u geystay inuu isbedel ku yimaado waxay Ethiopia u dhan tahay uu yimaado inuu iman doonin waa waxaynu u wada joogi doono laakiin waqtigan xaadirka isbedel kama dhicin laakiin rajo waxaa laga qabaa ninkan hadda yimid waxyaabo isbedelo yar oo xagga maamulka ah oo anaguba ah waxaan hadda aan ku soo baxay oo aan aaminsanahay haddii uuna isagu imanin inaana soo baxayn isbedelku haba socdo maxaa yeelay labadii bilood ee iga horreysay dad baa la sii daynayay maxaabiisa anigana dowladda waxay ii sheegtay oo weliba dowladda Canada ay Ethiopia sacad u sheegtay inaana ku jirin dadka la soo daynayo marka anigoo aaminsan ninka isbedelka yani yimid inaan ku soo baxay soo adeegsanaya kacdoonka dadweynaha haddana waa uun dowladdii weeye marka waxyaabaha administration oo xagga maamulka inuu keeno oo isbedela waa laga yaabaa waxyaabaha inuu hagaajiyo waa laga yaabaa laakiin xukunkii dadkii haye unbaa haya xisbiga talada haye unbaa haya marka Ethiopia isbedel kama dhicin weli waana sugaynaa inuu dhaco waa tahay ugu dambeyntii Bashiir hadda xor ayaa tahay dabcan waxaad sheegtay in xaq darra aad ku xirnayd ku dhawaad 12 sano waxaad tahay Somali Canadian oo passport Canadian ayaad haysataa halkan waddankaagii labaad ee Canada ayaad ku soo laabatay qorshahaaga xiga soo deyntaada kadib muxuu yahay maadaama xaq darra aad ku xirnayd sida aad sheegtay qorshahaagu ma yahay in aad markaad maxkamad la tiigsato Ethiopia iyo cid walba markaa ka dambayso qorshahaagu muxuu yahay run ahaantii arrintaa waxaan ku caddeeyey muxuu ahaa qoraalkaygii aan shirka jiraad ku qabtay baan ku caddeeyey waxa weeyaan ii qorshaysan inaan dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo runtii dhibaatadeeda mas-uul ka ahaa inaan dacweeyo ayaa iga ah sal iga ah laakiin sharciyadu waxay saamixi doontaa waxay saamixi doon ma garanayo iyaga iyo wixii kaleba waxaan arki doonaa markii aan la tashado lawyerkayga laakiin qorshahaasi wuu iigu jiraa inaan ciddii dembigayga ama dhibaatadii ugu dhacday mas-uulka ka ahayd in la helo oo dusha loo saaro arrintaasna kama hadhaya haddii la yidhahdo aad iyo aad u mahadsan tahay Bashiir waraysiga ana siisay waan kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga mudan